waqtigii khilaafada Abubakar Sidiq iyo Umar bin Khattab muslimiintu ma waxa la dagaalameen boqortooyada Byzantine mise boqortooyada Romanska sidoo kale goorma ay soo bilaabantay taariikhda dawladda weyn ee Roman Empire la yiraahdo jawaabta su'aashaasi waa muuqaalkeena maanta daawasho wacan boqortooyada Roman Empire la yiraahdo boqortooy kamid boqortooyinka ugu waaweyn dunida soo mara har waqtiyada kamid dunida la qaybsan jirtay dawladii jaarkeeda hay'aduna ee Farisiinta loo dhanayay laakiin boqortooyada Romanska la yiraahdo way kaadka boqortooyadii jaarkeeda ahayd ee Furs sababtoo Furs muslimiintu waxa kaga takhalusan gabi ahaantii muddo 15 sano laakiin Romanskan muslimiintu waxay soo taagnaayeen in ka badan 1000 sano boqortooyada Romansku waxay bilaabantay inay faafto 6 qarni ka hor Nabi Ciise macna 600 sano Nabi Ciise ka hor ay bilaabantay in boqortooyadu faafto laakiin kaliya wadankan Talyaaniga oo naqaano waqti xaadirkan gudihiisa ay ku faafisay dibadda ma bixin wali magaalooyinka Talyaaniga gudihiisa ku yaala ayaa bilaabay in midoobaan ayna sameystaan madaxyaga u talisa oo si sanadlaha loo doorto ma ahayn boqortooyo madax si sanadlaha loo doortay xukumi jirtay dawladdaasna waxa ka jirtay kaliya Talyaaniga gudihiisa ilaa laga soo gaaro qarnigii 3aad ee Nabi Ciise ka hor xilligaas ay bilaabaan in dawladoodan macnaha dimuqraadiga u dhisan ay faafiyaan oo banaanka u soo baxaan boqortooyada Romanska la yiraahdana dagaalo gudahooda ama civil war sida loo yaqaano ayaa soo maray ilaa waqtigeedu farabadan socday laakiin inaka ka taariikhan waxayna anfacayaan mala iyagoo bartanada doonaan haddii uu baahan in dagaalo sokeeyo barano waxaan baran karnaa muluku Taif kuwii loo oran jiray Andaluska talin jiro kale kuwaas oo kale anfacaya markii la soo gaaray qarnigii koobaad ee Nabi Ciise ka hor ayay bilaabantay in mashaakil gudaheeda dawladda Romanska mashaakil military siyaasadeed oo gudaheeda ka dhex bilowday awgeed dawladda hal mar way isku bedeshay boqortooyo doorashadii reer sanadlaha ahayd ee sida sanadlaha u dooran jireen meesha ka baxday boqortooyada Romanska marka waxa bilaabantay in ballaarato maadaama hadda boqortooyo noqotay marka waxa bilaabantay in ballaarato dhulada farabadan qabsato mar walba si ballaaratan mashaakilteedu iska sii farabadaneen ilaa laga soo gaaro qarnigii 4aad Nabi Ciise kadib qarnigii 4aad waxa xukunka boqortooyada Romanska qabta boqor ku caana taariikhda Romanska oo la yiraahdo Constantine ama Constantine the Great la yiraahdo boqorkan waxyaabo caanka ku waxa kamid ah hagaajinta dhaqaalihii dawladda militariga iyo mashaakiltii dhulka ka jirtay ay Rome soo kale boqorkii ugu horeeyay ee qaata diinta Masiixiyadda intaas ka hor waxay caabudi jireen waxyaabo iska jahliya Constantine ayuu ahaa boqorkii ugu horeeyay ee diinta Masiixiyadda qaata boqorkanina khalaad ku sameeyo waxa kamid ahayd waxyaabihii hore u caabudi jiray kamuu soo tagin markuu Masiixiyadda iimaanay ee wixii hore u caabudi jiray intuu soo qaatay copy and paste ay Masiixiyadda la imaaday markaas waqtigiisa ay ahayd waqtigii ugu badnaa Masiixiyadda diinta Masiixiyadda la yiraahdo ee khalkhal ka gashay soo kale wuxuu asaasay magaalo cusub oo ugu magac daray Roomadii labaad ama Roomadii cusbeed laakiin waqti markuu ka soo wareegay isaga ay lagu magac darayba oo magaalada waxa la yiraahdaa Constantine ama Istanbul si isku bedeshay markii dambe waana magaalada caasimadda waa dalka Turkiga waqti xaadirkan dawladda Romanska markii ugu ballaadhay waxay ka talinaysay waqooyiga Afrika dhulka Sham la yiraahdo bariga Yurub iyo galbeedka Yurub marka laga reebay yar mooye oo waqtigu ugu badnaa dawladda Romanska jirtay galbeedkaas Yurub wax dawladu adag kama xigin boqortooyada Romanska waxa uu kala bixi jirtay boqortooyada galbeed iyo boqortooyada bari boqortooyada galbeed waa caasimadda Rome ay ahayd boqortooyada barina waxa ahayd Constantine oo markii dambana si guud loo baxay Byzantine Empire boqortooyada asaaskeena waxa lahaa boqorkan hadda ka hadlaynaba ee Constantine la yiraahdo ayaa sameeyay caasimadda Constantine la yiraahdo laftirkeeda kadib ay ka madax banaanaataa oo Byzantine Empire la baxda boqortooyada Byzantine-tuna 1000 sano ay jirtay laakiin taa kale galbeedku waqti ka dambe magacyada biska noqonaysa oo si daciifaysay laakiin taariikhyahanada gaar ahaan muslimiintu Roman Empire ay wada yaqaanaan waliba waqtigii khilaafada Abubakar Sidiq iyo Umar bin Khattab kuwa la dagaalameen ee Sham ka xoreeyay dagaaladii Yarmouk ee Bisan la galeen Byzantine laftirkooda ay ahayd magaalo madaxdooduna Constantine ay ahayd soo kale boqorkooduna Heraql ayuu ahaa haddaba yar dulistaayno taariikhda boqortooyada Byzantine sababtoo iyaga dhinaca dagaalada xigay oo marna la dagaalamay boqortooyadii Furs marna muslimiintii la dagaalamay xaga boqortooyadii kala galbeedka ee caasimadda Rome ahayd kolba mar soo daciifaysay awood wax saasan aan lahayn boqortooyada Byzantine waxa soo maray boqor caan ah oo Justiniankii koowaad Justiniankii labaad iyo soo kale ninka la yiraahdo magaciisa Heraql boqorkan Heraql la yiraahdo waqtigiisii dagaalada farabadan dawladda Byzantine tu gasha waxaana kamid ah dagaalkii ay ku soo qaadeen ama weerarkii dawladda Furs ku soo qaaday oo
dhammaanba dhulka shaam oo dhan ka qabsatay heer kooxa la socday dowladdan furus intay tageen ay go'doomiyeen isla caasimadii Qusطنطين laakiin boqorkan nin caqli badan ayuu ahaa caasimadiisa go'doonsanayntu iskaga tego xagga dambe kaga yimid boqortooyadii furus ayagii la dagaalamay dhulkii shaamna ka soo qabsaday dhulada fara badan oo kale ka qabsaday guulo waaweyn ka gaaray laftirkooda soo kale waa ninkii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waraaqada u diray oo islaamnimada u soo bandhigay isagii boqorkii kale furus ee Kisra boqorkii Kisra soo waraaqadii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam u diray oo jeexjeexa xagga kale boqorkan Herakl la yiraahdo waraaqadii uu qaaday waanu akhriyay heer waxaan u dhawaaday inuu soo islaamo laakiin maadaama kuwa xeeran diinta Kiristaanka aad ugu dhaganaayeen wuxuu dareemay inuu muslimiina xilkiisu halis galay markaa xilkiisa ayuu raacay oo diinta islaamka iskaga tagay waqti khilaafada Abubakar Siddiq Umar bin Khattab markii la soo gaaray muslimiintu weerar ay ku soo qaadaan dowladda Byzantine waxaanay kala wareegaan oo furtaan dhulka Shaam la yiraahdo Masar iyo Liibiya muslimiintu intaas waxay ka dambeeyay waxa isku dayeen in dhankaas caasimadda Qusطنطين u jeestaan oo caasimadda Qusطنطين furtaan sababtoo ah Maxamed sallallahu alayhi wasallam ugu bishaaray muslimiinta la taftahuna al-Qusطنطينية والروم إن labadaba furan doontaan Qusطنطين iyo Roma labadaba furan doontaan oo waliba Qusطنطين tuu soo horeyn doonto magaalada Istanbul la yiraahdo sadarta saxaab badan dad badan ay isku dayay inay tagaan Qusطنطين oo furtaan laakiin way ku guul dareysteen waxaana ku qaateen Qusطنطين la furto 700 sano ilaa uu ka yimid wiilkii dhalinyarta ahaa ee dagaalyahanka ahaa Maxamed al-Fatih ee Cusmaaniga ahaa soo kale marka nimanka Romanska la yiraahdo way ka dagaalyahansanayeen oo ka geesisanayeen kuwa kale furus la yiraahdo oo muslimiinta furus waxa ku qaatay soo sheegnay 15 sano kaliya inay dhamaanteedba ku wada qabsadaan laakiin Roma 700 sano ay ku qaateen caasimadda tagaan taariikhna muslimiintu sidoo qabaan marka xaqiiqo laga sheego taariikhda niman geesiyo dagaalyahanna ay ahaayeen dowlad boqortooyada Byzantine way soo jirtay ilaa laga soo gaaray sanadii 1453 waqtigii Maxamed Fatih caasimadooda gal soo sheegnay boqorkan Cusmaaniga ahaa oo godoomin ballaaran kadib caasimadda Qusطنطين furtay boqortooyada Byzantine ee muddada badan dhulka ka talinaysayna xagaas ay ku soo gabagabooday intaas wixii ka dambeeyay boqortooyada Roman la ama Byzantine la raatoona ma jirin oo Cusmaaniyiintii ayaa gudaha Yurub galay oo bilaabay futuuxaadkooda Yurub la galaan waxaana ugu caansanaa Sulaymaan al-Qaanuuni ninkii futuuxaadku la gaaray laayo dowladda maanta waqti xaadirkan Ustaru la qaano muuqaalkan maanta intaas uu nagu geeyay fadlan nagu cusubtay subscribe sarsan noola socoto muuqaalada dambe assalaamu calaykum